fursado ayaa Soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay dadka bariga Afrika ku nool si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin Soomaaliya meel ay joogtaa maanta ay aad iyo aad uga fiican tahay meelihii ay joogi jirtay sanadihii la soo dhaafay laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeedna kuma filna kaligood sidaas daraadeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya aanay taariikhdii shalay Soomaaliya waa meel dhib badan waa meel culays ka jiro waa meel amni darro ka jirto waa meel saas ka jirtay shalay inaan la noolaan Soomaaliyada maanta horumartay amnigeeda meesha uu joogo meel aad iyo aad uga sareyso si marayso Soomaaliyada maanta adduunyadu ay ku qanacday in ay ka jirto dawlad mas'uul ah iyo dad mas'uul ah ay leedahay ku aaminay waxyaabihii shalay lagu aamini waayay oo dhan dib ugu soo celiyay ka qaaday caqabadihii hor taagnaayo oo dhan si ummadda iyo dalkan hor ugu socoto haddii ay ahayd cunaqabatayntii oo la yiri waa dal mas'uul oo lagu hadlayn karo hubka qatarta ku ah adduunka maanta waana loo qiray waana lagu aaminay ilaahay idinkiis waana ka soo baxaynaa dawladda Soomaaliyana way dhistay hay-adihii ilaali lahaa daba soco lahaa in aanu dadka Soomaalida khatar ku noqonin dariskeennana aanu khatar ku noqonin deymanana waa laga cafiyay inaan dhaqaale ahaan iyo maxaan ku raadaay economic governance-geena inuu sidii hore u soo dhaamo oo aan soo kordhayno oo aan horumarayno ayaa loo arkay ayadana lagu aaminay East Africa Community ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaay ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horeeyay meesha ku midoobay todobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyay waana nalagu qancay inaan ayadana mas'uuliyadaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono arrintaasi dawladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh 170 iyo jarjarkii wadan ee United Nations ka fadhiyo oo codeeyay Soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacawday in ay uga saddexda wadan ee Afrika matashahay inay uga mid noqoto Afrika ay ku matasha ayagana aqbalay oo nagu burmood gareeyay naguna ka garab istaagay noona doortay ayaa mahad leh ayagana waxaa sidoo kale mahad leh wadamadii rabay hankaas oo ku jiray ee Soomaaliya rabta markii la yiri la noqday hankoodii oo yiri okay haddii Soomaaliya ay rabto ayadan siinayna waa uga hadlay oo aan nagula tartamin arrintan ayadana mahad ballaaran ay leeyihiin waxa soo dhow isku soo xoori waxa ay tilmaamaysaa in kalsoonida caalamka ama qaaradeena ama gobolkeena oo nagu qabo in ay soo kordhiso maalin walba maalinta ka dambaysa ay soo fiicnaanayso oo meel caadi ay soo gaarayso Soomaaliyana ay soo istaagayso meesha caalamku taagan yahay wadamada dhan meesha ay taagan yihiin caalamka ay soo istaagayso wixii dal dunida ka tirsan lagu aaminay sidii loola dhaqmayna Soomaaliya in loola dhaqmay oo dal caadi ay tahay bas araba halkan inaan uga baaqo dadka Soomaaliyeed waa inay maadaama caalamka uu ku kalsoonaado ayaguna waa inay isku kalsoonaadaan waxaan leeyahay kuwa maalin walba ka hadla qiyaamaha the doomsday people
qiyaamihii inuu dhacay balaayo inta kasoo butaacday xagga balaayo kale kasoo degtay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wax badan ha dhageysanina waa dad shalay iyo dhibaatadii iyo xumaantii shalay la nool ka baqaya nabadda iyo horumarka iyo karaamada ummadda u soo saa'idaysa ka baqaya ee doonaya meeshii shalay la joogay xumaantii la yaqiinay in lagu nagaado ee aan doonayn inay u sahan tagaan wanaagga iyo muxuu ahay banka cusub ee la degayo inay qayb ka degaan aanan ogolayn waaye ama ka baqayo oo ay dhibayso bariga Afrika sida loo sheegay dad ballaaran oo Atlantic Ocean ilaa Indian Ocean isku soo xiro waaye 8 wadan waaye 8daas wadan 3 wadan oo ka mid ah ayaa ah wadamada xeebaha leh ee badda ku yaal Soomaaliya Kenya iyo Tanzania DRC طبعا in yar oo kooban ay badda Atlantic-ga ay ka gashaa shanta wadan ama 4 wadan ee soo hartay bad ma laha dhibaato bad la'aanna ma qabaan laana badaheena ayay wax ku leeyihiin badaheena ayay access ku leeyihiin sida haddaba Tanzania iyo Kenya ay wadamo badan oo suuqan ku jiraay ay access u leeyihiin waxaan rabaa inaan inta isku daro baryahan dambe wadankan dariska ah Ethiopia aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaarto warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska ah shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkil qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay ka leeyihiin marna ma horena uma soo dhicin haddana ma dhacayso adduunyadu xeeraray leedahay ay ku dhaqanto oo dawladuhu ka dhaxeeya oo mujtamac adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeena isfaham weyne مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulayeen laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay marayso waa taan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgaro weynana maxkamadda caalamka tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa sidaas daraadeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaalla inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegida shacabka reer Ethiopia wax problem oo ku qabna ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada macaamilno wixii kalsooni iyo isii wanaag iyo
isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag u si dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar u tahay